السلام عليكم. waxaan rabaa maanta inaan idin tuso maxaa la yiraahdaa xawaaji kamida xawaajiyada aad ka u isticmaashaan guryihiina ku isticmaashaan kaasoo la yiraahdo fennel seeds. maxaa la yiraahdaa waa xawaaji u eg xawaajiga maxaa la yiraahdaa xawaaji dhudhubkeeni maxaa la yiraahdaa waa kana isagoo xawaaji dhudhubkeeni oo caadi ah laakiin kan waa mid magac kaleeto leh. marka insha Allah qaabkii loo karinayay iyo caanaha u badinayay ayaan rabaa inaan idin tuso. biyaad karinaysaa marka ugu horeysa. biyaha markaad kariso sidii adoo shaah karsanayo kale ayaad biyaha karinaysaa. markaad biyaha karsato waxaad ku soo shubanaysaa bakeerigaagii shaaha sidan oo kaleeto insha Allah. hadda aniga biyahan waa soo karkarsaday kadibna waxaan rabaa inaan ku darsado qaadadan ayaan ku darayaa oo aan diyaarsaday. adiga waxaad u daynaysaa muddo la eg 30 daqiiqo meelahaas ayaad micnihii uu sidaas ku ahaanayaa. waa u jeedaan soo u ekaaday shaah camal buu ku noqonayaa insha Allah taala. markuu saa u ekaado adiga aad nusaac camal adiga dhowr daqiiqo aad meel u deysato xoogaa inta adiga rabtid. markaas waxaad sameynaysaa waad ka miiraysaa biyihii ka miiraysaa. waxaad markaa ku darsanaysaa malab. qaadadaas malabka ah hal qaado. awalna hal qaadad halkan ku shubatay. haddana waxaad ku darsan doontaa hal qaado oo maaragtay malabka ku yaala gurigaaga ee saafiga ah ee aad jeceshahay ayaad hal qaado ku darsanaysaa haddii la yiraahdo. intaas markaad macnaha marka horeeto intaanaad meel isla dhigaysaa. intaan markaad hadhowta kala miirto oo aad shaqshaqaaga caadiga ah aad ku miiran jirtay aad soo qaadato oo aad ka miirato ayaad qaadadaadii malabka ahaa ku shubanaysaa. dig ayaad isku siinaysaa. wuxuu aad ugu fiican yahay wuxuu maxaan ku dhahayo abuuraa oo maaragtay uu naasaha caano u yeelayaa. markaasna waan soo sheegi doonaa waxyaabo badan oo marka u fiican inay samaysmaan caanaha. kanna waa aad buu u fiican yahay waa la amaanay. walaalayaal waxaa kaloo halkan ii saaran maxaa la yiraahdaa qorfe shiidan. qorfahan shiidan marka waxaa samaynaysaa gabadha intaysan seexanin. ayadana yacni waa mid kale oo ay samayn karto. waxaanan sheegayo hadba kii aad u haysid niyad ayaad samaysanaysaa. qorfahan waxaad samaynaysaa waxaad kow kula qasaysaa malab. markaad qorfihii iyo malabkii iskula qasto oo isku dartid oo isku walaaqdid waxaad soo karkarsanaysaa maxaa la yiraahdaa caano kulul ayaad wixii aad soo qasatay qorfihii shiidnaa waa inuu saa u shiidnaado. iskana ilaaliya qorfaha ma ahan dabiici. kuwo badan oo waxaa jiro oo la sameeyay oo xidido kala duwan laga sameeyay kuwaasoo haddii uu qofka badsado ay maaragtay hadhowta dhib uga imaan karo. marka qorfaha dabiiciga ah haddaad helaysid qorfaha dabiiciga ah soo qaado malab ku qaso caano kulul markaas kabacdi ku sii dar kabacdi qab isku sii sariirtaada markaad tegaysid intaas isku cab. ayadana waa la amaanay. waxaa kaloo jiro aad loo amaanay toonta muddo badan ayaa la isticmaalayay. aad baa loo amaanay toonta. waxaad ku maaragtay intaad soo yareereysatid oo soo jarjartid oo goobaamin kasoo dhigtid ama dherer adiga qalbacyaa kasoo dhigaysaa gaballo. waxaad ku maaragtay iskula karinaysaa biyo kulul baad ku daraysaa. biyihii kululaabaad iskula karinaysaa kabacdi caanaad kula karinaysaa. caanahaas markaad kula karisid waxaad samaynaysaa ayadana waad ka miiranaysaa qabbaad isku siinaysaa. toontana waa la amaanay. gurigaaga ku taallaa iisi weeye tijaabi insha Allah. waxaad samaynaysaa biyo kula qas horta biyo kula maaragtay oo kula kari
kabacdi caano ku dar kabacdina iska miir ayadana aad bay u fiican tahay walaalayaal halkan waxaan kaloo ku haystaa oo kusoo diyaarsaday xawaaji dhudhuubkeennii oo shiidan xawaaji dhudhuubkeennii oo shiidan ayaad waxaad weel kula daraysaa sonkor xawaaji dhudhuubka iyo sonkor ayaad isku waxaynaysaa kabacdigeed waxaad ku daraysaa caano xawaaji dhudhuubkeennii aaway waa tanaa ayada iyo sonkor baad iyadoo saa u shiidan ayaad sonkor iskula daraysaa intii adiga aad markaas is leedahay qiyaastii hal qaado ama laba qaado ama hal qaadaad kasoo qaadanaysaa caanaad iskula maaragtay daraysaa kabacdi iyadana waa cabaysaa ama biyo hadba kii adiga markaas aad is leedahay wuu ku macaan yahay ayadana waa la ammaanay ha ilaawina xawaaji dhudhuub iyo xawaajigii kale u ekaa ee biyaha iigu jiray waa taasaa saasuu noqday hadhow waa ka miiraysaa malabkaaga dhab ku siinaysaa intaadan gelinin kan waxaa la yidhahdaa fennel seeds fencool svenska malabkaagaad hadhowto uga dhiganaysaa macaan kanna waa xawaaji dhudhuub maxaa la yidhahdaa xawaaji dhudhuub yaana ku dhihina waxaa waaye geedkii magaca lahaa waxa weeye qorfe kana waa xawaaji dhudhuubkii sonkor ayaad ku daraysaa waxaa kaleeto oo aad loo ammaanay aad iyo aad waxaa loo ammaanay xulbadaas walaalayaal aad bay u fiican tahay marka xulbada kuugu horeysa oo aad isticmaalaysid 24 saac ilaa 70 iyo maxaan ku dhahaa 2 saacadood ayay dadka ay ku qaadataa isla markiiba caanaha naas kuma soo galo aad baa xulbadan loo ammaanay isagoo ingiriisna waa kaasaa fenugreek aad bay u fiican tahay ayadana habeenkii ayaad biyo ku dhigaysaa insha Allah waxaa samaysaa habeenkii markii aad sariirtaada galaysid soo qaado biyo caadi ah waxaad ku darsataa adiga 2 ilaa 3 qaado markaas intaad adiga jeceshahay kula dhig kula dabool subaxii markaad soo kacdid waxaa samaynaysaa biyihii ka miir biyihii oo caadi ah markaas adiga karkarsoo kulkululeyso sidaas darteed iyadoo shaah ah u cab aad ayay u fiican tahay habeenkii markaad seexanaysidna waad samayn kartaa aad bay u fiican tahay la kaasho arrimahan aan aniga idiin sheegayo oo dabiiciga ah oo guryihiina ku samaysan kartiin aan rabo inaan walaalahay uga faa'iideeyo waxa weeye soo weydii maxaa la yiraahdayo umulisadaada iyo dhakhtarkaaga inta maaragtay qiyaastii ay qaadanayso walaalayaal caloosha xataa maaragtay waxaad sameynaysaan geedkan ay dhahayaan beetroot iyo maxaa la dhahaa iyo maxaa la yiraahdaa maxaa la dhahaa karootada isku shiid waxaad ku dartaa qaado yar oo maaragtay malab ah ku dar isla cab aad ayay u fiican tahay bariiska brownka ah ayadana aad ayay u fiican tahay waxaan kaleeto idiin sheegayaa mushaarida caadiga oo qamadiga ah ayadana subax kasta karso waan soo dhigi doonaa insha Allah qaabka loo karinayo loo sameynayay xulbadan haddii aad uur leedahay ha cabin weydii dhakhtarkaaga weydii xulbada looma maaragtay aad baa maaragtay looga taxadiraa markii uurka la leeyahay inaan la qaadan iyo in la yaraysto ma kala garanayo laakiin haddaad uur leedahay xulbada iska ilaali waa sida aniga aan soo akhristay qofkii yaqaanay hore u sameyn jirayna ilaahay maaragtay daawaha uga dhigo laakiin markii naas nuujinta ay tahay xulbada aad bay u fiican tahay xulbada mararka qaarkood dhididkaagii kaadidaada wuu isbedelayaa la kaasho inta aad qaadanaysid laakiin waxaan kuu sheegayaa inaad biyo kula dhigtid habeenkii oo subaxii sidii shaah intaa ka mirtid sidii shaahi aad u cabtid taada kale mushaaridii aan idiin sheegayay subaxii markaa karsataan waxaa sameynaysiin haddii ilaahay yiraahdo mushaarida oo aad karsatid miraha maaragtay blueberryga iyo strawberryga iyo raspberryga iyo waxaasoo dhan ayaad ku darsan kartaa haddaa rabta haddii kaleetana loosyada kala duwan
maaragtay markaas ku siinayo maxaa yiraahdayo calcium ayaad ku darsanaysaa. laakiin qofkii lowska ku ah allergy waa in uu aad uga taxadaro. dadkoo dhan lows ma wada cuni karaan. haddii se aadan is ogeyn laakiin aad iska dareentid waxyaabo qaarkoodna waa inaa maaragtay aad joojisid oo dhakhtarkaaga la kaashatid. walaalahayga sharafta lahow, waxaan kaloo rabaa inaan idiin sheego ukunta ama iyadoo biyo ku kari ama maaragtay markaas dub hadaa rabtid, ukunta aad ayay u fiican tahay inaad maaragtay isticmaashid. waxaa kaleeto reexaanta iyadana waa la ammaanay. kayl geedka ay dhahayaan oo cagaarka ah iyo maaragtay salarada qaarkood, romanka oo kaleeto, salarkaas oo kaleeto aad ayuu u fiican yahay. insha allah waxaan rajeynayaa iyagoo sawiro ahna inaan soo gelin doono. saa idiin sheegay waxyaabaha qaarkood haddaa allergy ku tihiin ama ay idin dhibayso ama awal aad ka dareenteen dhib, ka taxadara. haddaad reaction jirkiina ka dareentiin sidoo kaleeto subaxii quraacda iyadana 20 daqiiqo ka hor ama 15 daqiiqo ka hor waxaa cuntaa mushaarida adiin soo sheegay. wix allaali wixii markaas adiga aad rabtid ayaad ku darsan kartaa oo ku macaaneysan kartaa. malab ayaad ku darsan kartaa. caanana waa inaad ku dartid. ha ilaawin inaad biyo badan cabtid. teeda kaleeto caano cab. juusyada kala duwanna waa inaa cabtid. waxaasoo dhan waxay kuu keenayaan energy. ka sokow waxaa ku jiro fibera ku jiro, waxaa kaloo ku jiro calcium. waxaasoo dhan way u fiican tahay. irona ku jiro. waa ogtihiin anaga ironta yacni aad way noogu yartahay oo dhiig la-aana inteena badan lagu sheegaa. iyadana aad ay u fiican tahay. salarada wixii cagaaroo dhan waad cuni kartaa. waxyaabaha waxaad aad uga taxadartaa waxa gaaska kuu keenayo oo calool xanuunka kuu keenayo hadhowta cunugaagay u gudbin karaan. taasna waa inaa aad uga taxadartid. laakiin alaabtana idiin sheegayo caloosha ayay u fiican tahay. aad ayay caloosha ugu fiican tahay. 3 waqti ayaad cuni kartaa. subaxii aalisay markaa soo toostay, habeenkii markaa seexanaysid, iyo maalintii caadiga ahayd. si alaalisi adiga aad rabtid ayaa u cuni kartaa. geedkan ayadana xulbadan aad baa loo ammaanay. xulbada iyo toonta muddo badan ayaa la isticmaalayay. laakiin gabadha Soomaaliyeed ay aad uga taxadar wixii markaas adiga dhib kuu keenayo inaad aad iskaga badisid. oo yacni haddaad dareentid ur tiro badan iyo xoogaa maaragtay haddii naasaha caano fiican yeeshaan, ayadana waxyaabaha qaarkood waa joojin kartaa haddii ay kuu fiican yihiin. teeda kale cunuga markaa caanaha siinaysid mararka qaarkood usoo riix naaska, usoo riix cunugaaga haddii caanaha ku yaryahay. naaska u qabo oo sidii wax aad dhuujinaysid oo kaleeto uga dhig. markaas waxaa laga yaabaa inuu cunugu caanaha soo dareeraan. teeda kaleeto naso, cunto fiicanna cun, cunto badan cun. cabitaankaaga ha badnaado. dhowr galaasoo biyo ah, dhowr galaasoo juus ah. juuska caadiga ahee la qaso. kuwaan sonkorta lama ahan, laakiin kuwa kaleeto biyaha ahee diyaarka ah laakiin biyaha lagu daro, ayadana kuwaas aad u cab. waa intaas intaa idiin sheegaa. insha allah kuwo kalena waa soo gelin doonaa haddii allah awood raalli ka noqdo. waxaan idin leeyahay nasiib wacan insha allahu tacaala. ilaahay tala saarta, nasta hawshaan tirada badan. ilmahaagana saacad u nuuji, ha kala fogfogeynin, because maskaxda ayaa maaragtay signal loo dirayaa ah hadda wax ku nuugaya ma leh, iska gur. sidaa darteed saacad dhaaf ama 2 saacba mar ama saacad ama cunugaaga mar allaale markaa aragtid inuu wax raadinayo sii aad u nuuji. waxaan isticmaal nuujinta badi, nuujinta aad u badi. gurigaagana waa inaa caawinaad ka heshid. aabihii uu ku caawiyo ama uu ku caawiyo ehelkii markaas wixii kula jooga ay ku caawiyaan. stresska badan wuxuu guriyaa caanaha. marka sidaa darteed stresskaagu ha yaraado. naso. habeenkiina maxaan ku dhahayo waa markay ugu caanaha badan tahay. haddaa rabtidna waa lisi kartaa. insha allah waa soo gelin doonaa qaabka loo liso. waxaan idin leeyahay asalaamu calaykum waraxmatullaah.